السلام عليكم أصحابتك kusoo dhawaada janalka B3CS. Su-aasha saddexaad ee rabno maanta inaan sharaxno waa su-aashan example-ka y square equal x square plus bx plus c. Tan ayaan rabnaa, su-aashan ayaan rabnaa inaan ka shaqeyna anagoo ka saarayna arbitrary constant-iga. So derive with respect to x waxay noqonaya y square haddii la deriifo waxay noqonaya haddii x square deriif lagu dhaho waxay noqonaya 2x ay noqonaya y square haddii deriif lagu dhahana waxay noqonaya 2y dy. So marka waxay noqonaya meeshan 2y dy of dx equal 2dan hor soo waxay noqonaya 2x plus d-dan bx tan deriif 1y b times 1 kan waa arbitrary constant y and constant equal 0 lamid so waxay kula mid noqonaya b kaliya meesha. Marka labadan shay way isku dhufsan yihiin 2y waxa ku dhufsan tahay 2y waxa ku dhufsan tahay dy x. Marka laba shay isku dhufsan qaacidada waxa la isticmaalaa qaacidada product rule. Product rule waxay ahayd of f times g prime plus f prime times g sani. Macnaha kan koowaad waan la deriifin oo lagu dhigtay kan labaad la deriifay lagu daray kan koowaad oo la deriifay oo ku dhacsan kan labaad oo deriif ahayn. Macnaha hadda waxaan leenahay 2y sida soo qaado dy of dx square deriif, macnaha deriifkooda wuxuu noqonaa square lee noqonaa plus 2y deriif 2 times dy of dx oo ku dhacsan dy dx macnaha dy dx ka waa g-du ahay kaasna waa la deriif. waxaan u gudbaynaa derivative-ka labaad deriv 2 waxaan u gudbaynaa with respect to x waxay noqonaya meesha waxaan ku haysanaa 2y times dy square of dx square plus 2 times dy of dx times dy dx equal to deriv samee kuwan noqonay 2x express kan constant y inta x 1y 2a. marka meel walba oo 2 ah waa isla kansalayna marka isla crossayna 2 iyo 2 isla saar. So marka waxa soo baxaya marka intaas la saaro waxa soo baxaya y times d square of dx square dy dx square plus labada maadaama isku dhufsan yihiin waxaan sameynayna whole square waxaan gelinaa leenahay dy of dx whole square equal to a. marka waxaan u dhiman third derivative deriv with respect to x alowdha. marka waxay ahayd su-aasha markii previously waxay joogtay second derivative joogtay third derivative waxaa ku noqonaya dy of dx cubic meesha hadday square ahayd cubic kali plus dy dx whole square equal a marka waxay noqonaya equal s. So marka waxay noqonaya dy square dy cubic of dx cubic plus dy square of dx square plus dy of dx plus 2 dy of dx. Separate this line. So final answer waxaa noo soo baxaya y times dy cubic of dx cubic labadan maadaama isleeyihiin isku dar waxay noqonaysaa plus 3 dy dx square times dy of dx
equals 0